dadyoga dunida ku nool ayaa cajiib ku tilmaama nimcadu waa alla wadankeena ku manaystay sida badda baaxadda weyn leh oo laga helo manaafacaad kala duwan ugu horeeya kalluunka waxaa sarakac ballaaran sameeyay sanadihii dambe cunista samaga ama kalluunka daraasadii ugu dambeeyay ee laga sameeyay magaalada Muqdisho iyo gobolada ku hareeraysan ayaa lagu qiyaasay cunista kalluunka inay gaartay 53.2 marka loo eego isticmaalka hilibka qaybihiisa kala duwan dalkeena Soomaaliya ayaa caan ku ah cunista hilibka ku dhawaad maalinkii la qalo xoolaha noocyada kala duwan sida ariga, geela iyo lo'da maamulkii dawladda dhexe ayaa shacabka Soomaaliyeed ku dhiirigelin jiray inay cunaan kalluun si aysan nabad guur ugu dhicin xoolaha kale kalluunkan uu ka caafimaad badan yahay hilibka markii loo eego jismiga bini'aadamka iyo maskaxdaba waxaan socdaal gaaban ku tagnay xarunta ugu weyn ee lagu iibiyo kalluunka kawanka dhaca degmada Xamarweyne ka oo suuqa ugu weyn ee lagu iibiyo malayga marka loo eego magaalada Muqdisho meelaha kala duwan ee loo iibgeeyo inagoo u koorgareyna xaalka kalluunka oo marayo iyo heerkiisa kala duwan xilliga haatan lagu jiro subaxii hore ilaa iyo saacada habeenkii maadaama kalluunka haatan suuqyada magaalada Muqdisho lagu arkayo inuu ku soo badanayo waliba uu gaaray heer uu la tirsado hilibka gaduudan oo aad ka Soomaalida ay u isticmaasho marka ay timaado maalinlaha cunnada guryaha marka laga cuno بسم الله الرحمن الرحيم وأنا مجيء إبراهيم عبد الله أويس أو كشقي دقمة حمروين جارهان كوانك ملايقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالوين ملبو أجوبتا وسلامتي وحدين سلامينا سلامة إسلامك ماشي عاكو سقولنا وكوانك ملايقة حمروين حالة كلونك وسيدة أجيدان متكان يوم بي الله آدي آذا أول التخانين ملايقة آذو أيريهي وحصاوي ملايقة أنو يرادو وقاد دبيلا جيرو marka maadaama hadeertaan isbuucyadii ka hor aan soo dhaafnay oo kalluunka aad iyo aad u tiro badnaay hadeertaan waxa ku jirnaa bilo dabeela ah oo kalluunka aad iyo aad u yar yahay sida u jeedaan kawaanka malayga uu ku yar yahay kiilada jeedarka waxa la gadaa $3 oo maraya kiilada yumbiga $4 bar ilaa $5 maraya isbuucyo ka horna kiilada jeedarka wuxuu mari jiray $1 bar ilaa iyo $2 kiilada yumbigana $3 mari jiray sixirka isbarray darteed oo kalluunka aad iyo aad ugu kacay sida u jeedaan aan ka daacada kawaanka malay la'aana bismillaah noocyada malayga aad iyo aad u fara badan yahay waxa jira yumbi jeedar daambiri iyo xaas aad iyo aad u fara badan yahay kulliba hadeertaan Soomaalida malayga aad iyo aad u wada taqaana dad looga sheekeenay ma aho waa dad cunidiisa aad iyo aad u fara badan yihiin gobolada ilaa iyo tuulooyinka dhan laga cunaa marka kalluunka hadda ugu socodka badan waa jeedarka yumbiga iyo daambiriga bismillaahir rahmaanir rahiim maadaama hadeertaan kalluunka cunidiisa aad iyo aad dadka u barteen ilaa in magaalada ilaa tuulooyinka laga soo doontaa xataa gobolada waa la geeyaa inta badi maadaama asalkii hore kalluunka cunidiisa aad iyo aad dadka u yaraayeen hadda hilibkii iyo malayga aad iyo aad loo cunaa waxa sababeyna dadkii fahmeen wayna fiican tahay sheyga adiga u leedahay khibradda inaa fahamtid waxyaalaha annaga aan leenahay oo Ilaahay nagu deeqay waa kalluunka cunidiisa inaa barano waa loo baahan yahay sababtoo ilmaheena ilaa ilmahooda waxay ku noolaanayaan waa asaga oo risaqeena waa inay cuntooda bartaan waa loo baahan yahay Soomaaliyeed waxa idin leenahay kalluunka aad iyo aad u isticmaala waa mid fiican oo caafimaad ku fiican khaasatan yumbiga iyo jeedarka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Bakar Nuur Faraj magacayga aad u maasantii maadaama aad nagu soo booqateen xeebta hotel Batera ama Sukunta Lido waa ku maasantiin farqi weyn baa u dhaxeeya wax soo saarka malayga aad ay u batay doominkiina way batay ma sha Allah marka barfishin wuxuu noqday barfishin maanta oo Muqdisho oo howlgal ama shaq abuur dhanka kalluunkana waxa hadda la fahmay caafimaadkiisi waxtarkiisi maadaama sidii hadda xoolihii cirbado la duduraayo kalluunkana cirbad iyo wax Ilaahay nagu maneestay xitaa maqaayadii 90% hadda waxa la isticmaalaa kalluunka 2018 ayaan ku soo biiray aniga runtii horta ganacsatada aad bay u soo bateen habeenkii ayaa hadda ayaa ka mid iyo dhalinyartii kale iyo raggii kale marka wuxuu noqday wax soo saarka Ilaahay ayaan u maneestay alxamdulillah haddana waxa way hooshina waxa sanadka kale uu kasii ay badanayo dunidan casriga ayaa noqotay cayn halka fahanka dadka cunada maalinlaha u wanaagsan caafimaadkooda sidoo kale ay sii badanayaan waxaana la sii fahmayaa in kalluunka uu wanaagsan yahay jismiga iyo maskaxdaba sida Soomaalidu haatan ay u sii badanayaan warbixinteena ku taabanayno waa xamdi weyn waxayna haysanaa dal laga helayo qodad fresh
kalluun tiro badan iyo hilibka noocyadiisa kala duwan oo aad u tiro badan, balse kalluunka ayaa lagu tiriyaa munaafacaadka ugu weyn ee bini'aadamka, weliba dalkeenna aadka looga helo. Dalal kala duwan ayaa ganacsi ka sameeya kalluunka baddayna ay ka helaan taa oo kuu sheegaysa inuu yahay kalluunka ugu wanaagsan dunida haatan aan dul saarannahay marka la eego kalluunka laga helo badda. dadkeena Soomaalida ayaa haatan mar ka sii dambaysa sii fahmaya awoodda uu leeyahay kalluunka, waxaana sii baranayaan inay wax badan noloshooda ka bedelaan markii timada cunista kalluunka. Wallow uu isku bedelo sida xilliga uu isku bedelo qaabka loo helo ee loo soo geeyo ayay Soomaalidu ku faa'iideysanayaan xilliyada uu aadka badda ugu soo baxo kalluunka inay isticmaalaan sanadkii 2 jeer ilaa 3 jeer si wacan marka looga helo badweynta dalkeena martay Indian Ocean. Muzammil Sayid, Rajo Cable TV.